السلام عليكم وعليكم السلام. waxaan eegi doonaa dhacdooyinka isbuucaani ugu dambeeyay ee dhacay social media ama meel walba. isbuucaani waxaa dhacay dhacdooyin cajaa'ib ah oo laga diiwaan geliyay. waa barnaamij cusub aan bilaabi doono toddobaadle aan soo deyi doono. waxaan ku soo qaadan doonaa wax walba oo toddobaadkii dhacay, ha ahaado sportska, ha ahaado siyaasadda iyo wax walba. oo hore waxaan ku fiiri doonaa waxyaalaha toddobaadka cusub bilaaday isbuucaani Premier League kulmadii wixii sax badnaa ee laga diiwaan geliyay isbuucii koowaad ee Premier League furitaanka. waxa ugu weyn kooxda Liverpool ayaa Fulham waxa ay la dhaafaysaa 2-2 iyadoo laga qabay hamweyn inay kulkaas Liverpool ay bala doonto. dhan kaleeto waxaa kufay kooxda Manchester United iyo Brighton oo Brighton 2-1 ay ku garaacday kooxda Manchester United. taana waxay ahayd dhacdo kale cajaa'ib ah oo laga diiwaan geliyay tababaraha cusub ee Manchester United. dhan kaleeto waxaa qaatay hadalhaynta ugu weyneed Darwin Núñez oo u dhiray Liverpool kulanka kusoo galay bedel gool caawiyay gool dhaliyay. taa waxay maalintii Sabtida ahayd kulanka ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay gida ay ku ciyaartay. Jordan Klopp ayaa ku andacooday in garoonka kooxda West Fulham uu ahaa mid qaleel ah oo aanan biyo lagu shubin. ku maadeysanaysa ayaa barteeda waxay soo dhigtay garoonka intaan la ciyaarin ka hor ayaan waraawinay ayaan biyo ku shubnay. ayna halan ayaa kulankii Axad ahayd waxa uu kooxdiisa kulankiisa ugu horeeyay ee Premier League oo dhaliyay 2 gool midna ahayd Rigoro. taana waxaa laga baran karaa Haaland waxa uu soo wabiya weyn sababtoo ah waxa isha lagu hayay toddobaadkii horeeto kooxda Liverpool combination-ka ay lahabe ee 3-1 kaga qaaday halka Haaland oo ku soo bilowday wax gool aan dhali waayay محتاج سبب نوصل أوراً. لكن توا يكتب من الأسبوع وحاول سميه من ليابله وحاول سميه فعلاً هر لو أحكي بريمير ليج وحاول اللي يقول عجائب أو أوديو دي برونو أو أوديو مري يرتو ده وستهم وحين يقول إنه بديت كنترول أو بديت كداري. تانا أقول شو عجائب كان إنه حسوا فرناندو توريس ويقول ليفربول جو عارك والله. haddii aan ka gudubno kooxda Chelsea waxa hali ever ay ku dartay kooxda ka dhisan Manchester Liverpool ee Everton hali ever halka uu Jorginho u dhaliyay gool Rigoro ah kulankiisa goolkii ugu horeeyay ee dhalisay guud ahaan West Ham Chelsea. haddii aan eegno kooxda Arsenal waxa ay 2-1 ku diratay Crystal Palace ee ka dhisan cariga London waxayna ku garaacday 2-1 halka uu dhaliyay goolka halka uu goolka u dhaliyay ciyaaryahanka Martinelli oo Brazil daayirkan ayaa kulankiisa ugu horeeyay ee Premier League guud ahaan gool laga dhaliyay ku darfuray. haddii aan eegno dhanka kaleeto dhanka siyaasadda waxaa shalay la ansixiyay xukuumadda cusub ee golaha wasiirada dowladda federaalka iyadoo buuqa dhashay ugu dambeyn meeshii isku gacan qaadi rabay. laakiin ugu dambeyntii waa caadada baarlamaanka Soomaaliya oo mar walba uu leeyahay taa waxayna ahayd wax ku cusub dhagaha maysan ahayn oo dhagaas ummadda Soomaaliyeed. waxa uu muuqday inay joogaan halka suuq xoolaha lagu iibinayo balse waxa uu muuqday inaysan ahayn dad mas'uuliyad ka saaran tahay 100 milyan hogaamiyo. waxay muujiyeen mas'uuliyad darro waxaana ka muuqatay mas'uuliyad darro iyo sumcad darro ay soo muujiyeen. taa hadda ka gudubno xukuumadda cusub waxaa laga fadhiyaa inay talaabooyin aad u weyn ay qaadi doonto balse waxaan arki doonaa toddobaadada soo socdo wixii ay dhigi doono. caalamka kale haddaan eegno waxaa dagaalka aad u qaraaran ay ka taagan tahay dhanka China iyo Taiwan ay ku dagaalami doonaan waxaana Taiwan garab siinayo Mareykanka oo doonaya inuu booqdo halka uu ka hanjabay China ee tiraahday kibiyaan cagta ay amarsi doonaan. waxaana isbarbar taagay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Taiwan tahay dhul ka tirsan China. bariyaa inuu maalinta xigta ka dhigo mid wanaagsan. dhammaantiin waxaa idin leeyahay waqtiga haydii wacnaado maalintan haydii wacnaato.